السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo u mahadsantihiin dhammaan asxaabteyda qaaliga ee ku xiran barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Farxii Lucky. Aniguna waa walaashin Farxii Lucky. Waxaan idinku codsanayaa dhammaantiin haddii aad igu cusub tihiin inaad subscribe ii dhahdaan. Haddii aad hore ila joogtana fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad ii like gareyso. barnaamijkayga galabte wuxuu diiradda u saaran yahay ama aan kaga hadli doonaa oo ka falaqeyn doonaa maxay aheedo qowleysatada isku sheegaysa Soomaali inay tahay caadaysatay dhiigii ilmaha Soomaaliyeed barneysatay xatooyadii ilmihii Soomaaliyeed. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan maxay aheedo inaga qabanayo Allah ayaan ka hoosgalnay subxaanahu wa tacaala. bal walaalayaal waxaad ila fiirsataan kilibkan laba kilib midna uu ka dhacay Muqdisho oo kiis Muqdisho ka dhacay midna lagu qabtay maxay aheedo magaalo xeebeda Kismaayo. waxa saas yeelay waa gabdho Soomaaliyeed run ahaantii wixii ku shaqeysanayaan wili gabdhihii aqligooda iyo garaadkooda aysan buuxsamin. maxay aheedo waxa la leeyahay loo ballan qaadayaa lacag markii cunug yar ayadaba aqligeedu uu sataam ahayn loo ballan qaada lacag la dhaho intaas lagu siinayaa kadib ilmaha soo xad ayaysan ahayn hooyo wax dhashay ama beer wax dhalay wax dareemiyo oosan ahayn dhibaatada ay geysan karto waa dareemi kartiin. marka walaalayaal waxaan idinku codsanayaa bal horta inaad ila fiirisaan. waxaan kaloo idinku codsanayaa inaad u sii share gareysaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed si la iskaga ilaaliyo si ma aragtay maxay aheedo la iskaga qabto dadkaan caadaystay ilmaheen inay gurubsadaan nala sheeganaya Soomaalinimada nala sheeganaya Islaamnimada haddana haddii aad si u fiiriso aysan ku lahayn wax diir iyo dhaqnasho midna because markii aad qof islaam tahay awoodaadu ku siin mayso in aad maxay aheedo aad ilmo yar oo hooyo dhashay 9 bilood calool ku soo siday haddana hooyo Soomaaliyeed u naxayso oo calool xumaanayso aad ka haysato. marka Soomaalidu waxay dhahdaa hadal badani haamo buuxshay bal ila eega insha Allah. ما قبضت أي شيء aniga waxaa qabtaa aniga horta guri jooga ahaa naagaa soo waceen naagihii waxay i dhaheen imaa shaqaa lagu hayaa markii aan u tagay naagihii ay i dhaheen maxaa waa shaqadii aan dhahay markaas waxay dhaheen ilmaha la xadaa asaxana ilmaha aan la xadaa maxaa adi waxay dhaheen lambarkeyga qore inta ka bax wadaan tooska ka bax cunuga aragtid ma soo qaad taakadaan ma soo biiraan cunuga aragtid ma soo qaad cunuga aan soo qaadaa miyaha hay waa ka soo tagay anigoo naagihii ka soo tagay naaga oo wadada fadhiyaan u imaaday waxaan dhahay salaamu calaykum wacaykum salaam shaqaa rabaa waxay dhahay shaqada maxaa waaye markaas waxaan dhahay shaqo oo hool la qabanayo cid loo shaqeeyayo markaas waxay dhahay shaqo hadda ma rabnee hadhow waan aykan way iga shaqeey moogtahay hadhow waan biri camal soo ina lambarkayga u sheegay markii aan ka tago xagga camal tagay way i wacday kaaliyay tiri maxaa waaye taleefankaaga ii dhib waa u dhibay lambarinta waxaan ku arkiyaa waaye tiri lambardan dad waayaa dhahay isla marmadayga soo waceen markay soo waceen waa laga qabtay meesha dugsiga oo laamiyada agtiisa aan joognay imaam meesha maxay qafaatay laba gabdhood waa imaana haye waay naagaha anka oo ani iyo dadkii naagaha qabtay anka oo carno wiilashan ama naagaha meesha joogaan waa nigee lagu waaye ana nigeenayo isla hadda ها قضية إيه فاضمو يا أبو صدر ناقص ناقص أي كأسوعين أنا كرهك أقانا أنا هوش أو كجرا كم أمم مليني سير أول ما ولا ناقص ها أول ما ولا ها كرهك أقانا دقوا أهس والله بسرعة شلي أسوعين والله أوتك ساعة كذا أنا أوتكي أي محافظة وحيد هين وحيد هين لما كان واقعنا مدابح cunug ma oonayo ana markaas nala fashil ma yiri cunug yar oo adiga gurgurna aqlahan soo qaad markii naagihii aan ka soo tagay banaan kala u imaado meel fadhiyo maxaan ku seenaa wiil maxaan ku seenaa $500 bishii ama sarka cunug hooyo Farxiye Macalin Maxamuud oo ah hooyada dhashay Cabdullaahi Carab oo 2 sano jir ayaa sheegtay in ilmaheeda la waayay shalay barqankii baadigoo badan ay ciidanka booliska ku soo wargeliyeen xalay cunugoodii gacanta lagu hayo waxaana falkaasi loo soo qabtay Samiira Xasan Maxamuud iyo Shamse Sheekh oo ay booliska ku eedeeyeen
in ilmahan yar ay ka xadeen shalay xaafad ku taal magaalada Kismaayo. Samiira Xasan Maxamuud oo sida ay sheegtay ahayd qofka ilmahan yar ka xaday xaafadooda ayaa sheegtay in loo ballan qaaday lacag dhan $5,000 balse markii ay geysay cunugan halkii lagu ballamay loo soo diray $2 oo u dhiganta 52,000 oo shilinka Soomaaliga ah. waxaana arrintaasi ay ku eedeysay inay ku dhiirigelisay Shamso Sheekh balse Shamso way iska fogeysay eedan waxayna ku tilmaantay mid aan waxba ka jirin. islaantan waxay dhahday cunuga meeshaas uu degan yihiin meesha ka qaad hayaan dhahay waan ka qaaday lacag ay ii sheegtay $5,000 waxay siisay $2 aan cunug ku qaado bis meeshaan aan ka baxay Dudum aan tagay Dudum marka taan soo wacay waxaan dhahay cunugi waan wadaa intee geeya sanina ku imaan doon bulguud marka geesis geeska nina ku imaanayo ninkaas diib sida ameesho tagay ay intaas oo qofan koon dhigi kari laakiin islaantan aan idaaday lacagtan ku siini qaad cunugan. Farxiyo Macalin Maxamuud oo ah hooyada dhashay cunugan yar ayaa u mahadcelisay hay'adaha amniga ee cid waliba oo ka qayb qaadatay in cunugeeda ay dib ula midowdo. cunugayga shalay 2 saac ayuu uga dhumay guriga taga inta ka dhaca nag si ilaa xalay 4 saac guriga dadeed ayaan baareynay markay tahay 4 saac iyo bar ayaa wiil baadiyaha iyaan ka soo sheegay wiilashii soo daala ayaa hadana u naqan war wiilka halkaas baa la bartay iska xakameeyeen alxamdulillah shukru wiilkii jooga la yidhaha maamo waa lagu keenayaa adeerkay baa raacay wiilkii alla ay keenay aragtida aan arkay raggi iyo wiilashii iyo cunugii ooyin ayaan ooyay farxad oo ooyin ay iga keentay ma hadda alla u sugnaatay. waxaan isla soo fiirsanay kilibkii raay oo lagu qabtay dadkii dad qalatada ahay oo sheeganaya inay Soomaali yihiin haddana gabadha yar oo noloshu ay hadda u soo ifeysay waxaan su'aal qof walba ma doonayo inuu ilmihiisa iibsado ma doonayo inuu walaalkii iibiyo ma doonayo inuu dhibaato u geysto ehelkiisa maxaad ugu geysanaysaa islaanka dhibaatada maxaad ugu geysanaysaa hooyo Soomaaliyeed dhibaatada ma waadan islaan ahayn ma waadan shahaadaneyn ma waadan ogeyn in qabrigii yaray uu ku dambeeyo subhanallah ilaahay ayaan ka magan galnay anigu waxaan kamid ahay hooyooyinka Soomaaliyeed waxa ii joogta caruur waxay ii dhigtaan iskuulay dugsiyo haddana waxa waaye habeenkii walwal ayaan ku seexanayaa subaxii markii aan soo kaco waxa weeye inaan daba galo oo dugsiga geeyo ka soo celiyo iskuulka geeyo ka soo celiyo markii aan wax banaanka uga dirso aan maago maxay ahayd aan ku dhicin because ilmahayga ayaa awal ii soo adeegi jiray ilmahayga ayaa wax walba u dirsan jiray laakiin hadda maanta awood uma lihi waxaan ka baqanayaa in la iga xado marka waxaan leeyahay kuwa hooyooyinka dhaawacayo dhibaatada u geysanayo xanuunkana marsiinayo xakaar Allah idinku rido Allah ayaan idinka magan galnay malaa'iguhu idinma salaamaan waxa weeye $500 ay dhaafsiisanayaan ilmihii yaryaray sibiba sireysa waxa doonaysaa kaliya inaad kala baxdo laguma arko balaayo madow ku sii qaaday waayo waxa tahay adiga laftirkaada ubax soo baxayo bari waxaad dhali doontaa ilmihii aad dhali doontid haddii aad maxay ahayd sida tan ay kugu dhacdo waxaad dareemi lahayd xanuun waxaan dareemeynaa xanuun waxaana hooyooyin Soomaaliyeed xitaa waxaad u moodaa inaanan dadku inta badan aysan keer iska siineen dowladda federaalka aysan baaqiyo ka soo saareen because waxa loo baahan yahay qofka ilmaha hadayo qofka ilmaha dhibaateynayo markii la qabto kaleete wixii laga yeeli lahaa go'aamo inay ka soo saarto dowladii waxaad u moodaa inaysan damba ka lahayn waxaad u moodaa inay iska aamusan yihiin kaliya markii inta qof lagu qabto ilmo maxay ahaydoo loo soo dacwoodo laamaha amniga meesha kuugu sokeyso adaadid qofkani kiiskana ku qabtay wareesi intay ka qaadaan iska sii deynayaan ama waxaad maxay ahaydoo kaliya aad ku badbaadi kartaa in ma aragtay ehelkaada qof kamid uu yahay sargaal ama aad dowladii wax uun ay kuugu jirto laakiin se dhibaato waxa qabo qofkan indho u kala furneen dowladna shaqo ku lahayn waxa waaye aanan aqoonin hataa shaqsi maanta uu u cabto oo Allah subhanahu wa ta'ala aan ahayn ilaahay ayaan uga cabaneynaa asaga ayaan kaalmo weydiisaneynaa ilaahu kuwa naga ciribtir ilaahu kuwa naga qabo bil aadanka
oo ma aragtay nool ilmahaadi yaa la waayay markii la dhaho muruguu dareemayaa. laakiin caawa hadduu kuu saqiiro oo aad soo duugatid oo meesha kuu maray aad ogtahay waa samraysaa. laakiinse cunuga aadan ma aragtay aadan ogeyn meeluu kuu maray iyo maxay aheedoo halka uu ku dambeeyey oo uun isagiyo socdo intuu kaa tegay aad weysay, muruga ka xanuun badan ma jirto. waxaad dareemi kartana hooyo Soomaaliyeed oo ilmo dhashay. dhibaatada maanta aan qabnana Allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga cabanaynaa. ilaahow adaa awoodaadu badan tahay, ilaahow adaa irsaaqadaadu weyn tahay, kuwaaneeta naga qabo. waa gaalo bahoode, gaalo isbahaysatay, gardaro noogu soo duushay, doonaysa inay ubadkeena gurtaan, doonaysa inay kaliyaha kala baxaan, doonaysa inayna cirib tiraan. duulaan weeye, islaamnimaday la dirirayaan. rabbow adaan kugu dacwoonay, ilaahow kuwaa naga qabo. insha allahu tacaalaa waxaan idinka codsanayaa dhammaan walaalaha i fiirsan doono uu gaari doono codkayga kani inay iisii shargareeyaan, inay noo soo duceeyaan, inaan ducada iyo faatixada iyo ma aragtay quraan akhriska aan badino. Allah awoodiisa ayaa mid walba maalin walba cunug looga dhigaa. awoodda ilaahayna inay maxay aheed aan ku tashano. kolay dowladda wadankan kama jirtee Allah subxaanahu wa tacaala inaan ku tashano. ilaahow naga qabo, ilaahow awlaada nooga qabo, ilaahow kuwaa naga qabo adaana abuurtay. walaalayaal ducada noogu soo kaalmee, siina sheergareeya si ay ma aragtay ay iskaga ma aragtay iskaga ilaaliyaan dumarka Soomaaliyeed, loona forjignaado wado walbo ay soo istaagaan qaylo iyo dhagax tur looga soo war insha Allah tacaala. aad baa idin salaamayaa, waxaan idin leeyahay soo dhawaada, aad ayaa idin jeclahay. waxaad tihiin dadkaygii, waxaad tihiin Soomaalidii aan aadka u jeclaayo leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iga dhaliyo iga beere. inta xunna ilaahay aan ka magan galna Allah naga qabo.